halgandheer oo naf iyo maal loo soo horay ayuu ku yimid gooniisitaaga Somaliland bal haddaba waxaynu eegi doonaa 1994kii xuskii ugu horreeyay ee loo sameeyo xafladda 16 June kaas oo lagu qabtay khayriida magaalada Hargeysa waqtigaasi Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha hadda wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha waxaynu eegi doonaa xafladdaasi iyo qaabkii ay u dhacday iyo xaaladii waqtiga lagu sugnaa waxaynu barbar dhigi doonaa xuskii xalay lagu qabtay qasriga madaxtooyada Somaliland ee lagu xusayay sanad guuradii 61aad ee ka soo wareegtay waqtiga aynu mustacmaradda Ingiriiska aynu gobonimada ka qaadanay nasiib wanaag waqtiga markuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha oo yahay maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi haddaba guud ahaan waxaynu eegi doonaa farqiga weyn ee u dhaxeeya labada waqti muddada ay ka soo wareegtay 27 sanadood iyo maanta Somaliland halka ay marayso dhinac walba oo leego horumarka ay ka gaadhay
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والاخره. مركب هوري عاوة حول بلان هلكن أرض السلمان تاجين إيجار أو محاضر قبول يعني وأي وقت بنوه كومين وقت الكوباية وحنا ما بقيا إنتي كان قايب كاشاي قابضة يوسف بفرميسك لكن عاوة لغو معمولة أيوة تحيي لباتا لغو تحيي تحيي لباتا كنتلاس وكاهاي نصر الطوان وهذا قرن إلى وزيره ضليارو هوين وشاك إذا ما يكون قايب قاوتي وحماد يارجو ما دخلنا هوشا بلارن يا أي تسو كوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد مركب هوريسا وحمدوا كثيرا لدوينا غير هرقيسا هلك حاول في مناسبة سيدا شرفت له غرفة بضان له أول بني نمر كجرته هاي مناسبة الغيبية. مركب الغباب هذا القضاء واكد ومستحسن مناسبة وأيو بريتو إلى دوران بزولا أما روايتي هلك بيدي كنت السحيبة كل لغور لها تاريخها يوجد الصمرها مناني سنة يا أبواني سنة ينور من الجسد وحاول هلك كونا يعني رب تعالى وحوي والله يا مركب هوريسا إلهي ما تعالى halkan nagu soo diray inaynu si nabad geliya 4 sano dabadeed u xusno munaasabada 26 Juun oo halkan aynu isku wada nimaadno iyadoo aad ogtihiin meelaha waxyaabaha la soo maray iyadoo aad ogtihiin dibkii loo soo galay iyadoo aad ogtihiin dhimashadii loo musay iyadoo aad ogtihiin halkankii meelaha loo soo galay munaasabadani caawa labay kulmisaa waxay kulmisaa hore oo ah ingiriiskii intii lala dagaalamayey ee laga xoreynaya dalka iyo dictaatoorkii waddanka qabsaday ee 21 sano ugu dambaysa haysay intii laga xoreynayay. walaalayaal lixdankii gobonnimadii ay mahelnay masharaawo uu ku dhacay waa weyde ilaahay baa mahadnaale mar labaad halkan inoogu soo celiyey وأنا ما تقعد أنا باعي صلاة. حرية ديمقراطينا هاي حمدك دايم بايسكالي حمدك دايم بايسكالي
مدن مدحوينه wax salaata calanka u diyaara ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland ku soo dhawow aad bay farxad igu tahay caawa inaynu ka soo qayb galno innagoo nabada xasiloon horumar samaynay roobku inoo oo barwaaqo ilaahay ina siiyey nimcada badan ee bayna siiyey inagoo ku mahadnaqayna inaynu caawa u dabaaldegayno 61 sanadood oo ka soo wareegay maalintii aynu xornimadeena qaadanay qarnimada markaynu qaadanay qaybtii horeba waa la isku diiday shan Soomaaliyeed baa loo socday shantii oo la doonay mooyee labadii isu tagay ayaa dawladdii Somaliland markay koonfur tagtay waxba loo ogolaan waayay